هيا صاحبتي halkan waxa ka bilaabana daraama Shiineys oo aad u xiiso badan taas oo lagu magacaabo City of Romance wana sheeko aad u macaan bilagu daraamada waxa arkaynaa gabadha butaceyda ah ilaa yaraanteeda ayaa la dhibaateyn jiray hatta ardayda kuwa iskugu dhow yihiin ma dhaafi jireen si ay nabad iskuulka u dhigato ayay waxay u sheekeynaysaa inay cudur qabto kaasoo ku sababay mar walba inay sii cayisho in xakamay karin iyada markaas kadib ay ardayda dhan u calo jilcayaan kadibna waxay bilaabayaan si wacan inay ula dhaqmaan balse ugu dambeyn Bayniraad Melay waa laga daba tagayaa beenteeda oo si xum ayaa galaaska lagu galayaa qalbiga ayana ka dhaawacayaan waana isla tirishada filimkeena oo lagu magacaabo May waxayna aad u jeceshahay inay akhriso buugaagta komika waxayna aad u jeceshahay buugaagta komika ee Black lagu magacaabo akhrintoodana waa la soo kortay waxayna u haysataa nolosheeda inay wax ka bedeleen buugaagtan akhrintooda maanta May waxay ku soo biiraysaa jaamacad lagu barto caafimaadka isla markaas ay waxay arkaysaa gabar la foodaynayo isla markiina u imaanaysaa gabadha badbaadis idoo iska dhigaysa saaxiibteeda hore isla markiina ka soo wadaysaa gabadhan waxa lagu magacaabaa Huwa waxaan la yaab ku sii naqanaysaa inay isku qol noqdaan isla markaas ay May hadiyad waxay u dhigaysaa chocolate Mayna dareenkeeda ayaa kacay maadaama wiligeed saaxiib ayna yeelan saaxiibkaas oo wax hadiyada siiyo maxaa yeelay yaraanteeda butacnimo ay ku soo qaadatay meeshan butaciyada daataan oo lagu ciilayaa May ayaa markan buugii waxay saaranaysaa shelfiska kadibna Huwa markay aragto waxay u sheegaysaa qoraaga buuggan inuu isla jaamacadan dhigto asigoo magac kale isticmaalayo cid garanaysa qofku yahay ma jirto ay ku leedahay May ayaa markaas u jawaabayso haddaba haddii arrinkaas sax tahay aniga ayaa soo qaban doona qofku yahay banaanka keeni doono dhanka kale xafiiska daabacada buugaagta Black managerka xafiiska ahna taageeraha ugu weyn ee Black ayaa Black weydiinaysa sababta uu u joojiyay buugaagta uguna careysiinayo taageerihiisa Black magaciisa dhabta waxa la dhahaa Lin waan ardayga ii sheegayeen oo isla jaamacadan dhigto maamulada ay waqti xadirka ugu digayso haddii uu buug cusub soo saarin inay dadka isticmaali doonaan AI ayagoo ka dhigaya inuu asiga soo saaray Lin arrinka wuu ku xanaaqaya wuxuuna ku leeyahay sidii barbar dhigayaan wax mashiin ah oo wax dareena aan lahayn wuuna iska soo tagayaa isla markiina wadada ayuu wuxuu kala kulmayaa May waxayna u sheegaysaa inay tahay gacan yara qoraaga Black ayadoo markaan weydiinaysa halkay ka heli karto editorka meeshaan Lina maadaama uu u jeedo gabadhan ay been sheegaysa asigoo la hadlay ayuu isaga tagayaa isla markaas May oo gabadhii meesha ka shaqeynaysa weydiisa rabto ayaa wiilka lagu magacaabisayo asna meesha ka shaqeey u maanay wuxuuna ku leeyahay waxaan doonayaa Black inaan la kulmo toos inuu gudaha ugu gudbayaa Mayna markaan iyadoo ka shaqeysan ay albaabka ka eegaysa waxayna arkaysaa asigoo la hadlayo maamulad madaxii boombilahana gashanayo waxayna u qaadanaysaa Black inuu asiga yahay May markay ka soo tagto ay darjiinka waxay kula kulmaysaa Lin oo meesha iska fadhiyo kadibna waxay ku leedahay maxaa la murugaysan tahay ayadan u qaadanaysa asigana uu doonayo inuu la kulmo Black sida darteed loogu diiday qoraanna uu yahay uu doonayo sheekooyinkiisa inuu tuso Black isla markaas iyadoo niyadii u dhisaysa ay waxay u sheekeynaysaa Black inuu horumar sameeyo inay ku qaadato 41 sheeko inuu qoro markaasna horumarkiisa uu bilowday sida daraadidna uu niyad jabi isla markaasna waxay ugu celinaysaa inay tahay gacan yarada Black Lin isla markii wuxuu ugu jawaabayaa khaainad ayaa tahay Mayna way isaga soo tagaysaa iyadoo jawaabtiisa ka caraysa halka Lin buugiisa uu ku sawirayay gabadhaani asagoo sawirka horkiisa uu qorayo Benley isla markaas May waxay soo gaaraysaa qolkeeda waxayna u imaanaysaa gabar kale oo Jiya la yiraahdo qolka isla degan yihiin taasoo telefoon kula hadlaysa Ziya May ayaan Jiya u sheegaysaa inay taageero weyn u tahay Ziya sheekooyinka uu qorana aad uga hesho Jiya isla markaas waxay u sheegaysaa May Ziyo inuu yahay madaxweyne ku xigeenka ardayda jaamacadda Mayna arrinka markay maqasho aad ay u farxaysaa maalinta xigta waxaa arkaynaa May iyo Huwa oo soo raacayaan kadibna raadinayaan comic clubka si ay ugu biiraan kaasoo ah taageerayaasha dhammaan meesha ku kulmaan isla markaas waxay la kulmayaan gabar ka shaqeysa waxayna u sheegaysaa clubka in la xiriir rabo Mayna isla markii goobta soo gaarto waxay arkaysaa isla wiilkii markay yareed fuduuli jiray oo dhibaateyn jiray oo asagna meeshan dhibaato ka wado wuxuuna madax ka yahay clubka feeryahanada sidoo kale wuxuu doonayaa comic clubka inuu asiga maamulo waxaana loogu yeeraa Fong isla markaas Lin wuxuu u sheegay inuu ogolaansho ka helo xafiiska comic clubka markaas ayaa goobta waxa soo gaaraya wiilka lagu magacaabo Han oo ah xubin ka tirsan comic clubka wuxuuna u sheegayaa Lin inuu helay scholarship sidoo kale comic clubka aan la xiri doonin balse Fong ayaa bilaabay inuu ku jeesjeeso asigoo ku dhahay waxyaabaha maalayacniga ee meesha wadi yaa xiisanaya lacagtiisa ku khasaarinayo muxuu sayaa kambaniga waxba ganacsi ka yaqaan oo waxaan maal gashanayo isla markaas Lin oo aad uga carooday arrinkaas ayaa istaagayo waxaana isla markii bilaabanaya dagaal ka dhaxeeya labadii kooxood balse May ayaa goobta soo galaysa kadibna waxay soo qabanaysaa warqadii oo Lin tuuray iyadoo isla markii soo dhex galayso una sheegayso inay ogolaan doonin in clubkan la xiro waxayna u sheegaysaa inay caawiyaha Black tahay Blackna uu clubka caawin doono soona garab istaagi doono sida daraadid Fong iyo asxaabtiisa iska baxayaan xiisadii ugu horeysay jaamacadda klaaska ayaa macalinka wuxuu keenayaa Lin wuxuuna u sheegayaa inuu caawiyihiisa noqon doono una bixin doono xiisadaha ku saabsan cilmiga maskaxda psychology-ga ama cilmu nafsi isla markaas xiisadda ay bilaabanayso Mayna taleefankeeda ay fiirinaysa isla markaas Lin ayaa arkaya kadibna taleefankeeda uu fiirinaya wuxuuna ku arkayaa sawirrada isla markaas uu ku amrayaa inay istaagto kadibna wuxuu weydiinayaa sawirka waxay ka aragtay markaas ay ku jawaabaysaa qofkan wajigiisa waxa ka muuqda daciiftinimo xagga cuntada abitaadkana uu ka xirmo shaqadana aad ugu badatay inkastoo qofka muuqaalkiisa u malayso qof adag laakiin gudaha wuxuu ka yahay qof jalcaan waxayna u soo jeedinaysaa qofkan haddii uu cunto isku dheelitiran uu cuno una nasto inuu sidan ka soo fiicnaan doono Lin markaan aad ugu helayaa jawaabta ay bixisay waxayna u sheegaysaa ilaa yaraanteed inay jecleed inay barato daawooyinka cilmiga ku saabsan iyo caafimaadka qof ayaana fiidiyogeeda ka duubayo kadibna internetka ku baahinayo fiidiyogana wuxuu noqonayaa fiidiyo viral ah oo aad u kala kaco iskuulka inuu si fiican ugu faafayaa fiidiyowgaasi
haysada ka bacdi May waxay soo aadaysaa xafiiska kalaabka si ay ula kulanto Zio ay u malayso Black balse markay soo gaarto Zio bedelkiis wixii la kulmaysa Lynn isla markaas ayuu u sheegayaa Zio inuu goobta ka maqan yahay isla markaas ayaa Lynn wuxuu ku casuumayaa inay goob kale u raacdo maadaama uu soo xasuustay mar alla markuu la kulmo inay been sheegto wuxuuna doonayaa waqti xaadirkan inuu tijaabo ka qaado asigoo tijaabo ugu qaadayo mashiinka kala cadeeyo runta iyo beenta markaas ayuu May gacanta ugu xirayaa mashiinka kadibna sariirta ayuu seexinayaa wuxuuna bilaabayaa su'aalihiis inuu weydiiyo wuxuuna ku bilaabayaa su'aalo uu ka weydiinayo shakhsiyadeeda wuxuuna ku dhahayaa mar walba beenta maxaa u sheegtaa isla markaasna wadnaheeda ayaa aad u garacmayo markaas ayuu haddana ku leeyahay goormee beenta joojinaysaa waxayna ugu jawaabaysaa markii aan akhriyo buugga komiga ee Black deganaan nafeed ayaan ka helaa Lynn ayaana ku dhahayo waqti xaadirkan Black sidaas dhamcaan uma ahan markaas ay May waxay ugu jawaabaysaa haddaba sheekadaas waa sheeko iska caadi ah maxaa yeelay dadka caanka ah mar kor ayay u kacaan marna hoos ayay u dhacaan wax iska natural weeyaan mar dhowna soo laabasho aan caadihin ayuu sameyn doonaa ayay ku leedahay dhacdadaas kadib waxaan arkaynaa Lynn oo la kulmayo maamuladiisa waxayna u sheegaysaa markaan inay ka doonayso inuu ka qayb galo bandhig oo comic book ah oo caalami ah ayadoona markaan ka doonayso inuu halka wajigiisa iyo magaciisa dhabta ku soo bandhigo dhanka kale xafiiska kalaabka 4 xubnood kaliya ayaa ku soo harayso sidaa darteed waxay ku soo darayaan May maadaama ay uu shakayso inay gacan yar u tahay Black Lynn markuu ogaado wuu yaabayaa laakiin wuu ku aamusayaa isla markii Han ayaa istaagaya wuxuuna bilaabayaa inuu ka sheekeeyo taariikhda kalaabka wuxuuna sheegayaa Lynn markuu ku soo biir sheekooyinka Black in lagu soo daray arrimo ku saabsan caafimaad taasoo caddeyn u noqotay Black inuu ka mid yahay ardayda jaamacadda isla markaas ayaa waxaa bilaabay xubno badan inay ku soo biiraan kalaabka balse maadaama sanadka la soo dhaafay Black uu waxba buuga u soo daynin dadkii kalaab ka tirsanaa badankood waa lumina ayuu ku leeyahay sidaa daraaddeed waqti xaadirkan waxaa u baahannahay dad badan in nagu soo biiraan si uu kalaabka u shaqeeyo waxaana loo baahan yahay ugu yaraan 10 qofood isla markaas ayay May istaagaysa waxayna ballan ku qaadaysaa inay keeni doonto 10 qofood oo ku soo biiro kalaabka fikrad cusubna ku soo kordhi doonto taasoo xubnihii kale ka farxinayso May waqti xaadirkan waxay la kulmaysaa Zio kadibna waxay weydiinaysaa inuu ka xanaaqayo in kale maadaama iyada ay jilaysay inay tahay gacan yaraha Black balse wuxuu ku leeyahay mararka qaar beenta in la sheego waa iska caadi haddii aad doonayso inaad wax ku xalliso waxbana kama qabo maadaama wax ku xalinaysa ayuu ku leeyahay Lynn kalaabkii ay ku soo laabanaysaa kadibna waxay bilaabaysaa inay u soo bandhigto fikradii ay haysay waxayna soo jeedinaysaa in xaflad la sameeyo kadibna asxaabta sida loogu soo daro kalaabka balse Han uu ka soo horjeesanaya qorshahan isla markay u sheegtay inuu ka soo qaybgalaysana uu ogolaanayaa laakiin Lynn ayaa isku dayaya inuu is adkeeyo balse xubnihii dhammaanaya waxay bilaabayaan inay kursiga ku luluxaan ilaa uu ka ogolaado markaan xafladda ay bilaabayaan waxay ku qabanayaan heebta qof walbana uu iska baashaalaya qof walbana gacanta waxa lagu xirayaa saacad taasoo sheegayso wadnaha garaaciisa mar alaal markuu wadnaha saaid u garaacmana way farajaynaysaa markaan huwa uu eegayso oraxda soo dhacayso ayaa Han arkayo isla markaan wadnihiisa ayaa aad u garaacmaya saacadina way farajaynaysaa wuxuuna halkaa ka ogaanaya inuu gabadhan aad u jecel yahay isla markaan wuxuu isku dayaa inuu u tago la hadlo isla markaas ay xafladda waxa soo gaaraya May Zio iyo Lynn miirka ayaa ka tagayo ayagoo aad ula dhacsan gabadhan quruxdeeda dhacdadaas kadib dhammaan kooxihii ka soo qayb galay waxay daawanayaan riwaayad meesha lagu jilaayay oo ay jilayeen kalaabka riwaayadda waxaana ku jira riwaayadda Jia oo ah roommate-ka May waxaan riwaayadda ku jilaysay in jacayl lagu khiyaanay balse indhaheeda marnaba kama leexinaynin Lynn halka Lynn asigana uu ku maqnaa May Jian arrinkan aad ay ugu kululaanaysaa maadaama wiilka ay indhaha ku haysay oo indhaha asigana ku hay May isla markaas ayay wuxuu soo istaagay masraxa wuxuuna sheegayaa in ciyaar la dheelo taasoo laga rabo qof walba xirfadiisa inuu soo bandhigo sidoo kale su'aalaha la weydiiyana uu ka jawaabo isla markaas ayay May soo istaagaysa waxayna sheegaysaa inay caawi u tahay Black qof allaala qofkii doonaya kalaabka inuu ku soo biirana ee waxyaabo badan ka caawi doonto isla markaas ay Zio inta ag fadhiisatay ay waxay weydiinaysaa su'aal ayadoona ku dhahaysa weligaa qof ma jeclaatay mana jirtaa qof haddii aragto wadnaheeda uu zaa'id u garaacmayo isla markaas ay Zio saacadiisa waxay bilaabaysaa inay farajayso asaguna markaan doonaya inuu qariyo ayuu wuxuu marmarsiyo ka dhiganayaa inuu doonayo suuli inuu aado goobtan ayuu ka cararayaa waxaan halkan ka ogaanaynaa Zio gabadha May liraa inuu ka helay Jia markaa waxay isku dayaysaa inay la hadasho Lynn laakiin Lynn wuxuu ku maqan yahay May isla markaas ayaa wiil wuxuu imaanayaa May wuxuuna weydiisanayaa nambarkeeda Lynn markuu arko isla markii wiilka ayuu meesha ka ciirinayaa isla markaasna May sheekadeeda ay meesha ka bilaabaysaa su'aal ay weydiinaysaa Lynn ayadoona ku dhahayso weligaa qof ma jeclaatay dareensa qofku ku galay sida u jeceshahay camal buugaagta inay akhriso komiga iyo wiilka qore ee Black waqti xaadirkaas Lynn shaacadii u xirneyd ayaa bilaabaysa inay farajayso sidoo kale waxaa arkaynaa Han isla saacadiisa inay farajaynayso asigoo aad u xishoonaya in la hadli karin gabadhan hor fadhida ee Huwa si ay saacada u fashilin intuu qabto ayuu wuxuu ku tuurayaa biyaha faabitaan ayuu dhexda ka dhigay marka qaybta labaad ee ciyaarta ayaa loo gudbayaa wiil iyo gabar ayaa la isku xirayaa waxaana la doonayaa inay hal ku boodaan Han isla gabartu gaadgaada Huwa ayuu ku aadayaa halka Lynn May uu soo qabsanayo Jia iyo Zio isku aadayaan Mayna markaa bootada ay meesha ka wadaysaa waxayna ku leedahay 6 kiiloomitir ayaan carari jiray waxaa maxay agteeda ka yihiin isla markuu tartanka bilaabo qof walba inuu cararo bilaabana May way dhacaysaa afkimbi ayuu dhacaysaa waxayna soo naaxaysaa markaan iyadoo isbitaalka taallo labada gacmood ayaana arkaysaa iyadoo faashid ku duuban yihiin isla markiina qayli ayay galaysaa markaas ayaa Lynn daha wareejinayo agteeda iskeeda jiifay wuxuuna weydiinayaa sababtay u qaylinayso maadaama dhibaatadan dhacday iyada ay sabab u ahayd waxaana uu sheegayaa in lug ka jibisay isla markaas ay May waxay bilaabaysaa inay ka barido inay kor hal noqdo hadday reestaan cunto fiican ay u geli doonto maalinta xigta May waxay ku dhibaatoonaysaa dharka sidii u gasho lahayd halka Lynn asigana uu ku dhiban yahay socodka isla markaas ay May caawinayso idoo madaxeeda u dhiibaysa sida baakoorti si uu u cugsado isla markaas ay Lynn taleef laga soo wacay waxaana soo wacaysa hooyadiisa
ayadana ka raaligelinayso maadaama ay u maaweysay ayadana u sheegaysa in shaqo culus u tiir sida darteed ay u maaweysay mar kale May ayaa soo caawinaysa dana qolka u soo naqayso markaas ay saxankeeda soo qabsanaysa kadibna waxay ku leedahay saaxiib waa ku caawiyay markaad waa inaa caawisaa maxaa sugaysaa cuntada afkii geli bas xariifkan uu ku adkeynaya isla markiina moos intuu soo qabto ay afka ugu riixayaa dhanka kale Zey waxa aad u canaanaya maamulka ayadana loo sheegay dhacdo noocan camal inay waxba soo kordhineenin inay qasaare keento kaliya maahane waxaan lagu handadayaa xilka u hay in laga qaadi doono marka la arkayna May oo soo qaadanaysa oranjo kadibna Lin ay isu tagaysaa waxayna ka codsanaysaa inuu u fiiqo balse wuu ka diidayaa isla markaasna wuxuu u dalbayaa maraq isla markaas Sariisha ku dalbaya goobta soo gaarayo Lin markaan wuxuu bilaabay kaligiis inuu cuno halka May ay ku qaylinaysaa hay saaxib ma kaliya ayaa cunaysa aniga ay sii doono bal fiiri gacmahayga ay ku leedahay isla markiina wuxuu bilaabay inuu siiyo markaas ay ku leedahay saaxib hayga badan cuntada hadaba butac ayaa naqanaya wuxuu ugu jawaabayaa hadaba butacda naqato maxay dhibaysaa muhiimadu waa in caafimaad qabta ayuu ku leeyahay Mayna jawaabtiisa aad ay u farxaysaa cabaar kadib Jia ayaa cunto keenaysa waxayna u keenaysaa Lin laakiin hore ayuu cuntay ninkaani isla markaas Jia waxay bilaabaysaa cuntada inay siiso May markaas ayaa May waxay leedahay hadaba ninka ku guursada waa nin nasiib badan ayadoo eegaysa dhanka Lin isla markaasna waa story waxayna iska dhigaysaa qof hurdo hayso si ay labadan waqti u siiso chance ay ku sheekaystaan isla maalintaas May cabaar ka bacdi ay soo kacaysa isla markaasna waxay arkaysaa Lin oo xaggeeda soo fiirinayo markay indhaheedu isku dhacaan waxay dareemaysaa wadnaheeda inuu aad u garacmayo isla markaas ayaa goobta waxa uu soo gaaray Han isagoona war fiican u wadeen wuxuuna u sheegayaa dhammaan xubnihii laga soo qoray xafladda in la kansalay aan la ogoleen inay ku soo beeraan kalaabka Zey oo markaas banaanka albaabkiisa tagnaa oo soo gal rabay ayaa maqlay arrinkaasi kadibna uu iska laabanaya isagoona aad dusha iska saarayo isla markaas ay May waxay soo xasuusanaysaa oraahda uu ku qori jiray Black oo sida maamahayadina dadaala uu gaaraa isla markaas ay bilaabaysaa qof walba in dhiirigeliso waxayna ku leedahay hadii aan dagaalano waa guuleysanaynaa oo kalaabka dad maal gashta waa la helayaa isla habeenkaas Lin ayaa si dhuumasho ku tagay xafiiska sabuurada ayuu wax ku qorayaa isla subaxdii internetka dhamaya waxa isqabsanayo inuu Black soo laabanayo Lin wuxuu dhaqsi ugu soo laabtay isbitaalka halka May iska hurdayso wuxuuna isku dayay dhawaq sameeyay oo uu kaciyo laakiin ma ka kacayso balse markuu u sheego Black inuu wax soo dhigay isla markii ay soo boodaysaa waxayna arkaysaa inuu seasonka saddexaad soo saarayo arrinkan uu gelinayo farxad aan la dareemi karin isla markiina waxay bilaabaysaa inay budbuday dabaal degto dhammaan xubnihii kalaabkan waxay isku raacayaan sawirkan inuu sawir Black isla markaasna gabadha badan ayaa meesha soo galay si ay ugu biiraan kalaabka May Lin ay waxay u sheegaysaa inay u mahad celiyaan Black balse intuu ku qoslayo wuxuu ku leeyahay hadaba aniga tinta ku soo daba ima mahad celin ayaa ninkaas u mahad celinaysa isla markaas ayaa fan goob soo gaarayo maadaama kalaabkan 10 qof wali ay ku soo biireen wuxuu doonayaa sidiisa in la xiro kadibna xafiiskan uu la wareego asiga si uu la wareegan kooxdiisa fariyahanada May ayaa isla markaas u sheegaysa inuu goobta isaga tago balse iyada lafteedu uu handadayaa taasoo Lin ku kalifaysa inuu hortiisa soo istaago si uu xoog u saaradaan la horeynin balse Zey ayaa kala dhex galayo hadaba daraamadan qaybta koowaad halkan inuu joogaysa hay asxaabta muuqaalka laagta ay laga hilmaameen dan ugu sabtaan subscribe noo saar kambalaalkana furo si ay qaybaha kale oo tan kuwan ka xiiso badan u socoto oo inoo qaybta xigto